gudoomiyaha golaha guurta Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu sheegay heshiiskii saddexda xisbi qaran ee ku aadanaa qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka in aanay waafaqsaneyn qaar ka mid ah shuruucda dalka isla markaasina waxa uu sheegay in la iswaafajiyo sharciyada dalka iyo doorashooyinka. Salebaan Maxamuud Aadan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay qodobka isdhexgalka oo muddooyinkii u dambeeyay hadalhayn badan ka dhexdhaliyay bulshada reer Soomaaliland. hadaladiisina waxa ka mid ahaa حسابته هو المغلي هذا حسبي هو مغلي هذا الكودي شروع قرن كوطالنا وكوري مري هذا الدواء شروع الله يسوافت شيء دور شو هذا الواقع كان تبوت يسبح قلكم محوية دي ما فاهمين أحمد وارو هدي أنا نمانكي إسدحقال مرة كمان هذا كلا قرشين كهذين لو كلا قرشين كهذين إيجي ديدا بينه كانان قد دودي قد دي بينه كانان ديدا كاني ورديار تقدياشين يا إلهي نقارسيا مركي كانان شاكي قوة إسكار نافع هيدي meel fiican guul buu ahaa aan ku dayno guushanaan sida u aragno